بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد درسku waxa uu ku saabsiisan yahay masalada ku saabsiisan tarbiyo dhan maaha siiba wasaaisha la adeegsado marka carruurta la tarbiyeynayo waa daris ballaadhan run ahaantii laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo wakhtiga daraaddii markaan ka warramayno in la tarbiyeeyo carruur iyo qaabka loo tarbiyeyn karo ama adawaadka ama qalabka ama waxa la adeegsan karo in la rabeeyo ilmo carruuri wax fudud maaha ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu baryo nebiguna calayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu tilmaamayaa ducada waalidka in la aqbalo 3 dacwadood ama 3 dacwaatin mustajaabaat buu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam laa shaka fiihinna 3 baryo waa la aqbalaa 3da baryo ee la aqbalo wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaaةu wasalaam inuu ka mid yahay baryada waalidku hadduu ilaahay ilmaha u baryo oo khayr ugu baryana waa la aqbalaa hadduu ilmaha ilaahay u baryo oo shar ugu baryana waa la aqbalaa walidaalik nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu tilmaamayaa islaan u timi inankii ay dhashay oo caabida oo ka baxay meelihii dadku degganaayeen oo meel gaara sawmaco gaara samaystay cibaado daraaddeed oo isagoo salaad ku jira ay u timi oo ay ku tidhi yaa jurayj hebelow ay ku tidhi oo u yidhi ilaahuw salaaddii iyaba iskhilaafay iyo hooyo dabeetana salaaddii iska watay oo ay mar labaad ku tidhi oo ay mar saddexaad ku tidhi oo markii dambe ay habaarto oo ku tidhi ilaahay waxaan kuu baryey dumarka xunxun wejigooda alla ku tus xadiidka saan wada naqaano waxa uu tilmaamayaa in dumarka xunxun ilaahay wejigooda tusay ninkii isagoo haddana xadiidku uu tilmaamaya inay ahaayeen saaxibu karaama ninka kani uu ahaa nin karaamaadku ay ka dhacayeen warkaa markaan soo koobo waxa weeyaan tarbiyada koowaad ee qur-aanka in badan aan ku aragnay ambiyadii oo ilaahay baryaysa rabbi hablii min الصaalixiin nebiyullaahi ibraahim oo leh wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam qur-aan badan baa ilaahay inooga warramaya ambiyo badan iyo dad mu'miniina oo ilaahay ka barya in ubad saalixa la siiyo cagsiguna khatartiisuu leeyahay soomaaliduna cagsigay u badantay oo ah in ilmaa la habaaro hooyadu inay tidhaha balaaya kugu dhacday iyo markuu yaro dhibo meel daran ka dhac iyo imtixaan alla ku bedi yacni habaaradaasi waxaan isleeyahay dhibaato badan oo soomaaliya ka taagani waa dumarka habaarkoodii waa hooyooyinka habaarkoodii walidaalika awal shay aan idin tilmaamaya waxa weeyaan inaynu ilaahay carruurta u barino in ilaahay suubiyo subxaana wa tacaala u hagaajiyo habaarkana laga ilaaliyo shayga labaad aan tilmaamaynaa waxa weeyaan min طabiicati اlbashar waxaa ka mida kudayasho bini aadamku wuu isku daydaa ka yaroo qura maahe xataa qofka weyn kudayashadaasi waxay keensataa cid kale dhaqankeed ama fikraddeed ama aragtideed inuu qofku ku daydo haddii ay more popular noqoto wax caana ay noqoto ama cidda kale hadday u noqoto role modelkii lagu dayanayey ciddii mudnayd in lagu daydo haddii uu u qaato walidaalika insaanku waxay idhaahdaan intuu caqliga isticmaalo mararka qaarkood waxaa ka badan inta uu kudayashada iska isticmaalo waxaa laga yaabaa dhallinyaro dhaforrada xirxiiratay inaad aragto ama timaa raameeye ama caynkan cid ku tidhi raamayse ma jirto cid ku tidhi timaa xirxiire ma jirto cid ku tidhi surwaalka daloosho ma jiro laakiin role model cid uu u arkay oo markaasi stars loogu sheegay xidig muusiga cayaara ama xidig kubadda dheela ama xidig wax kala dheela dad xidiga loogu tilmaamay muuqaalkood ayuunbuu jeclaystay inuu ku daydo
idan asal waxa ah insaanku inuu jecel yahay ku dayashada marka uu yar yahayna waa ka sii gaar waayo ilmaha yari waxa ugu horeeya wax ku barta waa muxaakaa waa taqliid ilmaha yari waxyaaba ugu horeeya wax ku barta xataa afka maxaa lagu bartaa afka carruurtu barato dee iskuul lama geeyo af looma soo dhigo afka hooyadii iyo aabbihii ku hadlayaan dhegtiisa markuu ku soo noqnoqdo ayuu tijaabiyaa inuu xarfaha odhan karo maalinba siduu xaraf u soo saaraya ama midh u soo saaraya ku dayasho uu u wado ayuu luqada tan sugaa luqada aabbihii hooyadii ku hadlaan sida awgeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha markuu soo dirayo lama soo dirin buugaag qudha oo sida wixii loogu talagalay in basharku ku dhaqmo qur'aan qudha lama soo dirin ee waxaa la soo diray rasuul bini aadam oo soconaya oo waxaad u baahantahay u baahan oo waxaad dareemayso dareemaya oo si aad u fakerayso u fakeraya oo haddana qur'aan socda ah haddana ku dhaqmaya qur'aankii si uu u noqdo dadka role model uu ugu noqdo mathalu lacla wixii korreeye ay ku dayanayeen si uu u noqdo ولذلك أي إلهي القرآن سبحانه وتعالى وحكوا له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيدين كسغن إلهي رسول كيسة كد يشفي عنبا رب إليه سبحانه وتعالى أما القرآن كنت إلهي نبي كور رمي يا ربي وحوا له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كوا كان وكوي رب سبحانه وتعالى ودورتي رب سبحانه وتعالى وحو قرآنك وكت الماما يا مركة أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي انت النبي لك والرمي با إلهي لي كواسي وكوي الله دورتي وهنونيي هنون كودا كغدايو سيدا وقادو حينو لنا هي هدي انو ربنا المفي عني لانو التربية انو وحلو باهنيي كو قوري وينو في عناده oo ah hooyadii iyo aabbuhu inay tusaale u noqdaan da'diisu ilmaha markay yar tahay dunida cidda ugu weyn uu yaqaana waa aabihii hooyadii wuxuu haystaa aabihiina rag inuu u fiican yahay hooyadiina dumar inay u fiican tahay laakiin kullama da'diisu ay soo korto markuu isagu kor u soo koroba dheerarka aabbaha iyo hooyaduna hoos bay u soo gaabtaan oo intuu markii hore u haystay وكسو قابتان أما وكسو يرادا ولذلك بقى علمو مركو دوريو تبنشير قاردو وحو بلابا مران iyo dood iyo inuu in badan wax naqdiyo sababtu waxa weeyaan awal modelkii uu haystay aadka ula weyna ayaa intii hore ka soo gaabto oo ka soo yaraada waxay u baahan yihiin marka ilmuhu intuu yariyay in la baro cidda role modelka waa ama cidda uu ku dayanayo in la baro nabiga calayhi salaatu wasalaam in la baro saxaabadii nebiga in la baro dadka saalixiinta ah inta uu yaryay inuu barto cadaaladda inta uu yaryay inuu barto infaaqa waxbixinta inta uu yaryay inuu barto runsheega inta uu yaryahay inuu barto akhlaaqiyaadka dadka muslimiinta ay u baahan yihiin inuu ku dhaqmaan oo dhan haddii guriga oo cadaaladda ku barto dhaqanka soomaalidu guriga naxariista inuu bartaabay jecel yihiin ma jecla inuu cadaaladda barto maalan tusaalaan idin siinaya guriga dhaqanka soomaaliga ilmaha ugu yari waa loo naxariistaa markaasaa waalidku wuxuu ku ilzaamiyaa wuxuu ku qasbaa kuwa waaweyn oo dhamm inay u naxariistaan laakiin cadaaladdaa lunta ilmaha yari markuu ogaado wax kasta uu qabsado in la siinayo wax kasta uu ka weyn ku qabsado uu kaa yarya sii baa la yidhaahdaa cadaaladna maaha waxaa cadaaladdahay waxa weeyaan qofku wixiisa inuu yeesho haddii wixii uu aanu lahayn uu ku haysto in la yidhahdo warkaagii maahay uga tag maalin buu ooyi mar buu ooyi mushkilad maaha wuxuu baran doonaa qofka kale xaqiisa inuu ilaaliyo walow walaalkiina ha ahaadee ka weyn haddii lagu qancin karo waa walaalkaayo naxariisa waa sax laakiin can طawcin waa inuu ugu qancaa maaha inaad ku qasabto tidhaa uu kaa yaryahay ilowba ilow sii uu kaa yaryahay xoola kuma leh qof waliba wixiisuu leeyahy waxaan misaalkan u bixinayaa inuu qofku intuu guriga joogo uu barto waa sababta ilmaha soomaaliga yurub waxa caan noqotay
marka la geeyo ilmaha Soomaaliga kindergarten-ka ama meelaha kan carruurta lagu hayo dadka kale ee carruuraha kale buu wuxuu dhan ku wada qabsadaa waayo waa nin ku soo tababartay guri ah wuxuu qabsadaba in loo sii daayo oo la yiraahdo uu yar yahay la siiyo hadhow baa loo taag waaya kindergarten-ka markuu yimaado isagoo kiisa haysto ka kale buugga ka qaadayo qale ka qaadayo markaas laga soo ashtakooda la yiraahdo ma ogola carruurtii kale wuxoodii oo dhan buu qaadanaya u sheegay inuu kuwa kale wuxooda u daayo sababtu waa tarbiyada soo siisay guriga waxaad ku bartay qof kasta oo guriga jooga wuxuu ku qabsaday in loo sii daayo maadaama uu yar yahay in loo sii daayo waxaan uga jeedaa markaa masalada tan ilmuhu intuu yar yahay ayuu formationkiisa abuurkiisa ama qaabayntiisu ay socotaa intuu yar yahay waxa roon inaad wax kasta intuu yar yahay bari kartid ولذلك waxaan ku gabagabaynayaa qodobka koowaad waxaynu u baahanay inuu qudwa helo ilmuhu ku dayasho fiican inuu helo oo ah aabbaha iyo hooyada guriga jooga inay manhaj ay ku tababarteen ama qaab ay ku tala galeen inay wax u tarbiyeeyaan inay leeyihiin oo ilmahan yar lagu kariyo masalada labaad ee aan ka warramayna waxa weeyaan culimadu sheegaan waa wasaa'il darisku wasiilada labaad ee ugu fiican ee ilmaha wax lagu baro waxa ka mid ah bay yiraahdaan التربية بالقصة إنسان كسيدي سوء شيكة جعلي قفك بن آدم كاي شيكة دو جعلي المهنة وكسي جعيل بدنيه طرق دو قفي عنا الماء الله طببرا وحكم دبا دان الله شيكة هرتي سيدة بقى قصة أما الشيكة دو راد بي قفك بن آدم كاقول هذا ولذلك بقى قفك الرواح الجدي سينو السوقه انت بدن تاريخ دو دبقو نغدا شيكو كانا ama maahmaah buu keenaa maahmaahdu waa maxay waa sheeko dhan oo sentence lagu soo koobay qiso dhacday oo tiro badan oo halku dheg loo sameeyey dabeetana waa sheeko dhan oo hal jumla ama hal sentence lagu soo koobay waa maahmaaha qofku markuu maahmaahaya markaa wuxuu rabaa inuu qiso dhan kuu sheego oo dhacdo ama tan uu ka hadlayo u eg ama wax uu kaa waaninayo u eg meel ka dhowaan tilmaamo qur-aanka in kuna aayadood ka badan baan rajaynayaaba qiso ah qur-aanka in badan oo ka mid ah ayaa sheeko ah qisaskii ambiyada umamkii la rogay qisaskoodii dad kaloo badan qisooyinkoodii waxaasoo qisaa ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa subxaana wa tacaala inaynu wax ku qaadano bale nebigaa la amray oo ilaahay leeyay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun dadka sheekada uga warran qisaska u sheeg waxay mudan yihiin inay fakeraan ilmuhu markaa intuu yariyay adabka fiican akhlaaqda fiican dhaqanka fiican dadka wanaagsan in looga sheekeeyo waa wasiila tarbawiya soomaalida dhaqankeeda markaa dib ugu noqono masaladan way taqaanay laakiin waxay ku salaysnayd hadafka tarbawiga ay leeyihiin dhaqanka Soomaaliga waa dhaqan reer miyi reer miyiga xooluhu markuu soo haroodo ee la soo xareeyo markaaba hadhuubka lama hoos galo ee xoolaha waa la xareeyaa waa nastaan waa degaan gala xidigaaba loo eegaa xidig heblaaya markay dhacday uma hadhuubka la hoos galaa carruurtii maanta oo dhan xoolaha raacaysay haddii ay sugto oo la yidhaahdo ha sugaan caanaha inta la lisayo way luloodaan waxaa caado ah markaa dadka waaweyn inuu carruurta u sheekeeyo islaamaha waaweyn iyo kuwaas inay carruurta sheeko u bilaabaan sheekaa looga sheekeeyaa sheeko Soomaaliga carruurta loo sheegaa wuxuu u badnaa sheekooyin ku saabsiisan libaax iyo yani dhiirani sheekooyin ku saabsan waayo ninka reer miyiga ah tarbiyada laga rabay waxay qof adag oo dhiiran oo wax iska dhicin kara inuu noqdo haraad u adkaysta geel raaci kara libaax ka dhicin kara waraabo dhicin kara marka qisaska Soomaaliga nooca ku saabsan waa wada waraabe iyo libaax iyo dawaco iyo bahal bay ka waramayaan laakiin wuxuu waafaqsan yahay manhajkii fikrigooda ahaa ama ilmahay rabeen noocuu noqonayay buu waafaqsan yahay waxaynu u baahanay ilmuhu inuu sheeko helo waa laga maarmaan laakiin qisadu waa inay noqotaa qiso haadifa oo macna samaynaysa oo muthulka ama afkaarta la rabo in ilmaha loo gudbiyo weeleeya waliba ilmahan dambe mucaasarka ahina siiba dugsi hoose markuu dhigto waxbay akhriyaan
inan yar baan arkay oo shahaado la soo siiyey dugsi hoose ku jirtaa muddo yaroo 2-3 bilood ka dhadhow ayay 5 kun oo page akhriday waa inan yaro Soomaaliyeed shahaada la soo siiyey 5 kun oo page inay soo akhriday كل هذه القراءة waxay ku salaysnayd laakiin de wixii uu iyagu ay siinayeen ama bookskay u dhiibayeen ama qaabkay rabeen inuu fakaro waxaynu u baahanay ama af Soomaaliya ku qoraato ama af Ingiriisi ku qoraato ama af Carabi ku qoraato luqad uu qofkani garanayo ama qisas buugaaga ama kuwa waalidku ka sheekeeyo ama macallinku ka sheekeeyo ama waxa kan laga sheekeeyo waa asaaliibta dhalinta yar yar ugu tirada badan lee lagu raadeeyo maskaxdiisa wax loogu sheegi karo ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام قرآن بدن وقصصه إلهي كسود الشيء أحاديث النبي مركز دركته قصص ضبط بدن بقصة أروري دل يرى ده مرة دل يرى خباب من الأرض اللي يهدا ويمين النبي وكعبنا إياه غير ما كذبتي مشكلة دي اللي جيستي سو كعبها هر كذا شيفة النبي عليه الصلاة والسلام وحكيري وردت كيدين كهر ريم متكود أنت الله ساق بطابع دفعت بره laftiyo hilibka lagu kala saarayay ama inta la soo qabtaaba miishaar madaxa laga saarayo laba loo kala jarayay waxa soo dhamina diintooda kama celinaynin ee ilaahay baan ku dhaartay diinta tan ilaahay uu gargaari doona ilaa iyo sanciya xadaramood dhexdooda qofka muslimka intuu iska socdo aanu cidna ka baqi doonin alle mooyane subxaanahu wa tacaala yani nabigu si uu ninkan wax uga dhaadhiciyo wuxuu u soo qaatay qiso hore dhacday ama qisas hore dhacay dad hore iyo wixii ku dhacay iyo ninkan wuxuu ka cabanaya la iswaafajinay idan waxa ila mawduuca qisadu waa usluub min asalib tarbiya waa qaab kamida qaababka carruurta loo tarbiyeeyo waxa kamida qaababka carruurta loo tarbiyeeyo oo aan Soomaalida agteeda buuray in la qanciyo Soomaalidu ilmaha waxay ula dhaqatay inaan waxba fahmaynin waxba kala garanaynin dan sidoo sakana askariya ku jiray ula dhaqantaa sidii qof xere military ku jira xerada militariga awaamirun baa la siiyaa saayeen saaqabo waxa sabay cidii awaamirta khilaaftana waa la ciqaabaa waa nidaamka militariga askarta lagu la dhaqmo guriyuhu xeriya military ma aha haddaadun guriga markuu odaygu soo galo awaamirun uu bixiyo islaantu markay soo gasho awaamirun ay bixiso carruurta wixii awaamirta khilaafa xer ciqaabeed oo la mariyo mid guri lagu xidhayo mid la garaaciyo mid wax kale la sameeyaba ma aha si sax ah sida sax ah waxa weeyaan ilmuhu wax buu fahmi karaya koow in la isku dayo in la qanciyo mas'alada wadanadan aynu nimi weynigaga fiican yihiin waxaad arkaysaa qof weyn oo ilmo yar wata oo u sheekaynaya oo u sabrayo ilmuhu carcararayo kolba meel istaagayo intuu soo qabto wax u sheegayo waxani waa mamnuuc ma fiicna kani lama ogola wuxuu sheegayo waa yahay leeyo raacayo laakiin masaladaasi inta badan waxay ku salaysantahay wax sabir la yiraahdo iyo dulqaad Soomaaligana waa meelaha habaarku kaga dhacay ninka Soomaaliga la yiraahdo inuu dulqaato ama wax u sabraa waa meelaha hadaynu sabrayno de maynan rogneenba gurigeynu ka nimi diinuun sabiru jiro ama in uu dulqaad jiri karayo ilmuhu wuxuu u baahan yahay in loo sabro loo dulqaato wuxuu u baahan yahay in loo sheego wax laga qanciyo walow as'iladu ku weydiinaya carruurtu way su'aal badan tahay xaqiiqo jirta walow su'aalu ku weydiinaya hatta haka kanaadaana مثلا dhalinyaro baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi isagoo nabigu saxaabadii la fadhiyo la wada fadhiyo ayuu intuu u yimi u yidhi waxaan rabaa anigu dee dumarkaan u baahanee in lay fasaxaabaan rabaa aan sinaysto waa su'aal goob nabi maxamed fadhiyo timi in dhalinyaro ah ka timi waxa uu dalbanaya waxa weeyaan anaga zinada la ogolaado anigu in lay fasaxo ayaan doonayaa buu yidhi dabeetana dadkii baa hadlay nabigu wuxuu yidhi aamusa war soo dhawow adiguna ma maagin ma caayin waxba kuma samaynin uu soo dhaweeyay ilmihii ninkii yaraa wuxuu yidhi soo dhawow uu soo dhawaaday ilaa uu nabiga hortiisa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu dood caadiyuu la sameeyey wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo hooyadaa ma la jeceshay markaasuu yidhi may hooyada xaggeeda in la maro ma rabo wuxuu yidhi dumarka kalena qaar un bay hooye u yihiin oo aan la jeclayn wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inantaada ma la jeclaan lahay markaasuu yidhi may inantaydana ma raba inay ragga ka haystaan
wuxuu ku yidhi dumarka kalena ragun bay hablahoodii inuu aan la jeclayn nebigu wuxuu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam walaashaa ma la jeceshay may buu yidhi haddana nebigu wuxuu weydiiyey eeddadaa ma la jeceshay may buu yidhi wuxuu weydiiyey habar yartaa ma la jeceshay haweenkii ku xeerraa isaga ninkani ama hooyaa dhashay inan buu dhalay ama walaal buu layey eedday u tahay habar yar bay u tahay intan miyaad la rabtaa buu yidhi inay zinaystaana suuqa galaan wuxuu yidhi maya ilaahay rasuulkiisiyo kuwan lama rabo wuxuu yidhi kuwa kale aad ku socotaana nin ciduun bay u yihiin habar yar iyo eedde iyo hooyo iyo inan ay u yihiin dadka kalena lama jecla zinadan dadkooda deetana soo dhowow buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam intuu laabta gacanta ka saaray ayuu muu maagin manuucaayina waa u sii duceeyey allahuma akfir danbah waطahir qalbah waxsin farja waxasin farja nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahu kan dembigiisa dhaaf oo qalbigiisa daahiri oo farjigiisa u dhowr waxay culimmadu yidhaahdaan ninkii ilaahay ducadii nebigu u aqbalay wiilkii yaraa oo gabadh dambe dib uma eegin masalada maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa inuu isku dayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qanciyo oo ka qanciyo kala doodo zinadu wax xun inay tahy afkana aan lagaga boodin waxba laakiin wax loo sheego si uu u qanco waayo qofka bini aadamka wax kontaroola qalbigiisa ugu fiican inuu qofku waxaan ku qanco isaga ay ka timaado bale masaa'il taa ka adag baa qur-aanka ku taalla qur-aanka waxaa ku yaalla nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay u waxyooday oo mas'ale adag loo waxyooday isagoo gaboobay oo aan carruur hore u dhali jirin oo hal ilmaa dhalay ilmihii inuu gowraco ayaa ilaahay u waxyooday nebi ibraahim iyadoo la eegaya bal nebi ibraahim inta casiimadiisu gaadhsiisantay haddii adiga intaa laguu sheegi lahaa oo aad ku qanci lahayd inaad fuliso waxaa laga yaabi lahaa inaad tidhaahdo dee kaa yar malaa ku yeeli maaye isagoo meelahaa taagan un intaad luqunjibaadho midida mari ha ku dhaafee ilaan ilaahay baa yidhi gowracay laakiin nebi ibraahim sidaa ma yeeline waa u yimi wuxuu ku yidhi yaa bunay innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara wiilkaygiiyow riyaa ilaahay igu tusay riyada ambiyaduna waa waxyi teenna lama mid aha riyaa ilaahay igu tusay anigoo ku gowracaya ee fandur maada tara bal hadda u fiirso adna maxay kula tahay yacni qofka waxaad arkaysaa aabbahan iyo inankiisa cilaaqada ka dhexaysay intay gaadhsiisnayd kalsoonida la ysku qabay labaduba siday ilaahay u wada rumaysnaayeen waxa laga talagelinaya waxa weeyaan in la gowraco ayaa la rabaa in lagu qanciyo o laga talageliyo dabeetana waxaa la yidhi waa lagu biraynayaaye maxay kuula muuqataa ibraahim tuu yeelay waxaa ka sii cajo badanayana wiilku tuu yeelay ma cararin ma dhuuman ma khiyaamayninoo ma odhan halkan ka soo noqonaya iskaba tegin waxba kale ma samaynina isna wuxuu ku leeyahay yaa abati ifcal maa tu'mar aabba wixii lagu amray samee buu yidhi anigana satajidunii in shaaa allahu min aلsaabiriin adiguna wixii alla ku amray yeel aniga dhankaygana waxaad i heli doontaa anigoo kuwa sabro ka mid ah qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa wakhtigani goormu ah falamaa balaga macahu sacya baa lehy waa markii uu ismaaciiluun la shaqayn karayey waa ilmo 10 jir dhowr iyo 10 jir markaa maraya labadiiba ilaahay bay isu wada dhiibeen kadib markuu ibraahim damcay inuu bireeyo ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay wafadaynaahu bidibxin cadiim waxaanu ku furannay wan weyn baa la yidhi baa la keenay kii baa ibraahim qalay wiilkana iska sii daa baa la yidhi ilaahayna wuxuu ku sifeeyey nebi ibraahim inuu yahay waibraahiima aladii wafaa waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun ibraahimkii wax kasta dhammaystiray ama ibraahimkii ilaahay itixaamadii oo dhan ku guulaystay abulambiyaa qisada waxaan uga jeedaa markaa masaa'ilkeeda kale kama hadlaya laakiin hal masalo waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan rabaayad kalsoonida dhex taallay aabbahan iyo inankiisu inay gaadhsiisnayd in laga wada hadlo
iyadoo la isgowracayo arrinka laga wada hadlaya uu yahay in ka yar la gowraco oo uu ku qanci karo in aabbihii gowraco oo uu aqbali karo in birta la mariyo waxaan leenahay marka ilmuhu iyo aabbuhu hadday kalsoonidaasi dhexdooda abuuranto oo la isqancin karayo waa wax fudud noloshu in la wadaago qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf oo ilmo yara oo daa nolosha waxa uu ka soo arkee xataa riyadiisa aabbihii uga warramaya yani xidhiidhka aabbahan iyo ka dhexeeya ilmahan bay tilmaamaysaa adiga waxaa laga yaabaa hadduu kula hadlo markaad afka kaga booddo hadduu magaalada soo gubo inaanu kuu sheegin waayo xidhiidhka idinka dhexeeya mid awaamir iyo dagaal ah laakiin nebi yacquub inankiisu wuxuu uga warramayaa maaha wuxuu soo arkay oo qura xataa markuu riyoodo wuxuu ku riyooday ayuu aabbihii la wadaagayaa markaasuu wuxuu leeyahay id qaala yuusufu liabihi yaa abati innii ra'aytu axada cashara kawkaba waashamsa waalqamara ra'aytum lii saajidiin aabo waxaan arkay 11 kowkab iyo cadceedda iyo dayaxoo ii sujuudaya aabihiina waa u fasiro waa u tilmaamo wuxuu ku yidhi yaa bunay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiidu laka kayda ina shayطaana lilinsaani caduwun mubiin aabo riyadaada walaaladaa ha u sheegi kale waxaa laga yaabaa inay ku dhakraan oo waayo waa sababeeye wuxuu ku yidhi ina shayطaana lilinsaani caduwun mubiin shaydaan inuu idin dhex orda bay u badan tahay shaydaankuna dadka col buu yihi qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim luqmaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu xikmad siiyey dabeetana hal qiso oo qura laynooga soo sheegay that means hadihi alqisa waa min alxikma la siiyey bay ka mid tahay qisaduna waa isaga iyo inankiisii war dhex maray waid qaala luqmaanu libnih wa huwa yacidu ya bunaya laa tushrik biاllah waxaa dadka uga warrantaaba ilaahay leeyahy luqmaan markuu inankiisii ku yidhi isagoo waaninaya ilmahaygiiyow ilaahay haw shirig yeelin shirkigu waa ilaahay cibaadada cid kale ha la wadaajin mahadnaqa rabbi subxaana wa tacaala cidna ha ku lamaanaynin su-aashu waxaa laga yaabaa waayo inay timaado wuxuu sheegay daliilka wuxuu leeyahay ina shirka la dulmun cadiim shirkigu gaalnimada ama la wadaajintaasi waa dulmi weyn qofka bini aadamkii dulmigu inuu xun yahay wuu yaqaanaa haddii cidi maanta wax ku siiso oo ku soo koriso oo xoole kaa dhargiso miyay fiican tahay xoolihii qofkaasi uu ku siiyey inaad isaga kula dagaalanto caqliga caadigaa baa diidaya waa dulmi qof isagii wax ku taraya wax ku siinaya oo wixii uu ku siinayey maxay aad kula diriraysaa macquul maaha ka warran rabbiga ku abuuray ee caafimaad ku siiyey ee nolol ku siiyey ee kownkan ku keenay ee hawadan dhulkan waxaanaad cunayso o dhan isagu leh haddana inaad cibaadada cid la wadaajisaa miyaanay dulmi akbar ahayn waa dulmi weyn ilaahay saa kuu nimceeyey halkaad isaga waxda uga mahadniqi lahayd keligii aad caabudi lahayd mid aan waxba ku siinin inaad caabuddo ama u mahad celiso rabbina aad dafirtaa waa dulmi luqmaan alxakiim inankiisii markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi ilaahay haw shirig yeeli wuxuu see u sheegay sababtu waxay tahay oo wuxuu leeyahy ina shirka la dulmun cadiim luqmaan qiso dheer buu markaa uga warramayaa ilmihiisa mid kasta wuu sababaynaya masale kasta uu uga warramo wuu u sababaynaya waxay leenahay marka iqnaacu iyo isqancintu waa aslun min usuuli tarbiya bay dhahay ama wasiila min wasaa'il tarbiya usluub min asaaliibi tarbiya ariiq min turuqi tarbiya waa waddo ka mida waddooyinka wax lagu rabeeyo oo u baahan innaga iyo dhasheennu inaynu isfahmi karno wada hadli karno isdhegaysan karno isqancin karno wax isu sheegi karno markaasaa waxaa yimaada usluubka wacdiga ah waana usluubka qura soomaalidu taqaana inuu odaygu waaniyo ama naseexo inanka u sheego
abasaya saas ma fiicno saasa fiicano saasa naseexada waynu naqaanaa iyadoo mar iyadoo kuusan inanka loo sheegayo طبعا naseexadu waa ka mid يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أما قصة إنك آخرين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ با إلهي واندو وكمد ونبي عليه الصلاة والسلام دتك وواني جري عرباض بن الصاري حديث كسي وكيلها نبي عليه الصلاة والسلام بن وانيي وانو أي إشو أيدي وقلبه قلقلمي مركزانو إلهي رسول كيسي وتري وحوي أكتئ وانو قف نجتجيه maxaad nooga tegaysaa markaasuu nebigu ku yidhi ilaahay inaad aطeecdaan uusiikum bitaqwa allahi wasamci waطaaca waxaan idinka tegayaa rabbi cabsidii iyo kala dambayn iyo ismaqal umamku hadday kala dambayn iyo ismaqal waayaan waa ummad halaagsamaysa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dardaaran waxaan idinka tegayaa kow ilaahay inaad ka cabsataan laba inaad kala dambaysaan xataa mid addoon xabashiina madaxa idiin noqdo yacni bulshadu qof ay markaa yeesaysay ama bulshada qof aan ka mid ahayn ama dadkeedii mudnaanshiyaha lagu yaqaanay aan ahayn xataa kaasi hadduu madax noqdo in la maqlo oo la ateeco xadiidka kani waxa uu tilmaamaya waanadu qof weyna waa la waaniyaa qof yarna waa la waaniyaa qof walba waxbaa loo sheegaa waalidku inuu ku dadaalo inuu ilmaha waaniyo oo wax u sheego أساليبta tarbawiga ah ee la tilmaamo waxaa ka mid ah tarbiyadu macrifo maaha yacni masaa'ilka cilmiga ah mar baa la sheegaa waa wuxuun macrifa loogu talagalo lilmacluuma qofku inuu garto laakiin tarbiyadu maaha taasiye waa wax la rabo inuu qofku ku dhaqmo maadaama ay ku dhaqan tahay waxay u baahan tahay waxa wanaagsan aad qofka la rabto oo dhami inay xad gaadho inay culture noqon karto inay caado noqon karto inay dhaqan noqon karto in wuxuu dhaqan noqdaa wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo in waqti la siiyana waxay u baahan tahay inuu waxa kale si istimraariya continuous si isdaba jooga in loogu sheego ilaa qofku intuu ka tababaranayo masaladaana dadkaan sabirka badnayni ma awoodaan soomaaliduna dadka sabirka yar bay ku jirtaan yani maalan ilaahay qur-aanka salaad buu inagu waajibiyey qofka muslimkii inuu tukado waxaana la waajibiyey inaad dembaabayso haddaad tukan weydo rag iyo dumarba markaad qaan gaadho laakiin laynama odhan markaa qaan gaadhaan salaada bilaaba markaasaad dembaabaysaaye waayo wakhtigaasi waa critical point buu joogaa waxay ahayd wakhtigaa markuu soo gaadho inuu noqoto wakhti uu salaadu caadooyinkiisa ay ku biirtay waanu culays soo arkaynin aqoonteedii uu sugay waanay waxbarasho badan uga baahnayn ay noloshiisa baart ka mida qayb ka mida noloshiisa ay tahay sida awgeed baa waxaa la yidhi ilmuhu markuu yar iyo 7 jir yahay salaada bara baa la yidhi 7 jir waa xaddu tamyiiz waa wakhti uu qofku wax kala sooco sida awgeed wakhtigaa waxaa bartaan baa la yidhi salaada oo wakhtigaa waxaad baraysaa طahaaradii iyo saa loo طahaaro qaato waxaa la barayaa dee waxaan uu akhrinaya markuu tukanayo qur-aankii uu akhrinayey faatixadii uu akhrinayey adkaartii kale uu akhrinayey hay-aadkii uu tukanayey laakiin waa ilmo yar waajibkuma aha waxaa laga yaabaa mar inuu 2 salaadood tukado haddana kaa baxsado mar kale xabad tukado iska tago mar kale 3 salaadood tukado wado laakiin waxaa lagu yidhi 3 years dulqaadkaa ogolow inuu iska baxbaxsado ah trainingku si ha socdo adiga dhankaaga trainingka adigu positive ka ahaw taagnow inaad bixinayso hadduu iska baxbaxsado waxbaa ku ciqaabin 10 jir markuu gaadho baa la leeyahay waa in la ilzaamiyaa waa in lagu maagi karaa hadduu ka baxsado waayo 3 sannadood buu training ku soo jiray 3 ama 4 sannadood 7 jir 8 jir 9 jir 10 jirkii hadda weeyaan waa 3 sano ama 4 sano 3 sano imise salaadood baa la tukan karaa yacni marka maalintiiba 5 salaadood ay ahayd ee 360 maalmood wax ku dhodhow aad ku dhufato almost waa 1500
ee aad saddex kale ku waa 5,000 oo salaadood wax ku dhadhow 5,000 oo salaadood baa lagu yidhi training ha ku qaato markuu soo gaadho 10 jir salaada ha wada baa la yidhi laakiin weli aakhire dembi loo qori maayo waxaa dembi loo qorayaa marka uu gaadho maxay qaangaadh tani waxaa la rabaa waxa qofka noloshiisa yawmiga ah ku biiraya inuu wakhti hore lagu tareengareeyo uu la soo qabsado ilaa iyo markuu qaangaadhe uu weynaado ay ka mid noqoto noloshiisa caadiga ah noloshiisa caadiga ay ka mid noqoto oo qofku aanu dhib aanay ku keenin haddii markaa ilmaha aan waxyaabaha dhaqanka islaamiga caado looga soo dhigin hadhow way adagtay in lagu karo markuu yar yahay in la baro cunnada in bisinka loo qabto maanta wuu ilaabi berri wuu u qaban saa dambe wuu ilaabi laakiin muddaad ku wadi waxaad baraysaa inuu gacanta midig wax ku cuno maalmaha hore bidixdu ku bilaabi markaasaad ka qaban maalmaha ku xiga wuu ku bilaabi markaasaad odhan doontaa midigtaadii waa tee markaasuu garan doonaa inuu qaldan yahay oo uu midigta ku bilaabi laakiin marka dambe si automatic unbuu midigta ugu cuni doonaa bidixda waa iska ilaabaya noloshoo dhammi waa caynka kan yani tusaale fududoo dadku garan karaan inta badan carruurtu markay yaryarta aynu dhulkan ku hayno guriga si aanay inooga uskagaynin bambaris baynu u xidhnaa xafaayad socankaa maaha waayo waa ilmo yaroo wax badan fahmi maayo xafaayaddaa lacagtaa mudduu ku xaaraa soo socda 2 jir 2 iyo badh meelaha markuu soo gaadho waxaynu rabnaa inaynu xafaayadda ka furro dee ilaan lacag lagu wadi maaye markaasuu markaa jaamar ooyaa yidhahdaa kaadii ima hayso waa la qasbaa waa la wadaa waayo waxaan la rabin inuu guriga ku kaajo hadhow waxaad bilowdaa inaad wakhtiga u kala yaro durkiso 2 saacadood 3 saacadood 4 saacadood saasaa loo soo wadaa aakhirka waxay gaadhaa in beedhmaanka laga daayo wariyaa markay kaadigu ku hayso sheegay ha ku kaajin gurigee waa carruur ma garto markay kaadidu soo hayso inuu kaadi tago ee markay ka soo daadanayso qayliyaa yidhahda kaadaa haysa markaasaa la yidhaha la gaadha beedhmaanka maalina gurigu ku dhex kaajaa marna waa lagala gaadhaa waa la soo wadaa wakhtigu marka dambe gaadhaa uu qofkaasi musqusha la qabsado wax ka dhaadhacda gurigu meel lagu kaajo inaanu ahayna musqusha inay tahay meesha lagu kaaja waxaa ka dhaadhacda kaadidu marka ugu dambaysa ee ay kaa daadanaysa inaan la kaajine marka hore hadday ku soo qabato in la tago musqusha oo lasoo kaajo idan training baad siisay ilaa iyo aad ku qanacday inuu qofka kani isdaberi karo oo kaaji karo markaasaad faraha ka qaada nolosha gebigeeduba waa caynka markaa nolosha gebigeeduba waa caynka taa macnaheedu waxa weeyaan in qof la traingareeyo wax la tababaro oo cilmi loo sheego oo waxbarasho nololeed loo sheegaa waxay u baahan tahay in wakhti la siiyo waxay u baahan tahay wakhtigaa in loo dul qaato waxay u baahan tahay wakhtigaasi si joogtaa in wax loo siiyo waxay u baahan tahay ilaa iyo intuu qanaacada ah ka gaadhayo inaad isleedahay wixii wuu qaatay oo wuu ku tababartay in la daba taagnaado marka qadiyada tarbiyada la yidhahda gebigeeduba tacliinta caadigaa waxay kaga gedisan tacliinta mar baa la sheegaa waa la iska tagaa waxay kaga gedisantahay istimraariya muddaa la wadaa ilaa iyo qofku waxa kan uu kala qabsanayo waxaan leenahay noloshoo dhammi marka noloshoo dhammi caynkaasay u baahantay ilmuhu intuu yarya waxaynu barraa markuu soo tooso inaanu cunnada ku bilaabin ee musqusha inuu ku cadaydoo baxo maalmaha hore uu iska yimaada marmar buu canjeelada qaataa markaasa war ma soo cadayatay mar kasta hooyadii imtixaanka waa la taagantay orod soo cadayo orod waxaan soo samee marka dambe isagaa barta markuu indhaha soo kala qaado inuu qabto musqusha uu cadayga ka bilaabo dabeetana intuu cadaydo soo farxasho kadib uu soo baxo dee noloshii gebigeeduba waa sida tan marka haddaad rabto inaad ilmo koriso wax kastoo aad rabto inaad ku korisaa waa inaad aqbashaa time inaad siiso uu kula qabsado waxaasi uu noqdo inuu si caadiya uu bartay dabeetana uu si caadiya ugu dhaqmi karo marka waxay yidhaahdaan التعويد إن قفك وحا عادة لوغا دغا ووسيلة كميدة وسائش التربية وحا كميدة وسائش التربوية إلو باهيين المال وترينغريو وسيلة ترغيب وترهيب إن قفك وحنا لا نعبيسيو وحنا لا جعليسيو وحا حن هي حمانتودا هي دبتا إليه
iyo mashaakilka keenaan in la baro looga sheekeeyo waxa wanaagsan iyo wanaagiisa in la baro ilaa uu ka jeclaanayo wanaagu ula muuqanayo wanaagu ula muuqanayo طرقda badan ee loo maro inaad markuu wax fiican siiyo aad tashjiiciso eray ku tashjiici yani inaad dhiirin geliso encouragement ama eray fiican ku dheh ama hadiyad u iibi ama wax ku sii cagsiga markuu wax xun sameeyo in la ciqaabtu budh maaha siyaabo badan bay noqon kartaa in laga aamuso in la maago in yani heerar kala dambeeyo tiro badan bay mari kartaa inuu garto qofku waxaan uu sameeyey wax xun inay tahay baa ugu muhiimsan thawaab iyo ciqaab inuu lagu train garayn karo waxa uu baahan yahay ee ugu weyn waxa ka mid ah inuu saaxiib yeesho in western society waxay yidhahdaan kama maarmo inuu saaxiibad yeesho inan hela inantuna inan hesho iyo waxa kale usii wadaan laakiin ma inuu qofku qof kale uu la saaxiibo oo warkiisa u sheegan karo oo nolosha la wadaagi karo oo wax badan uu la joogi karo inuu helaaba muhiima sida ogeed baa saaxiibku dee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalil qofku diinta saaxiibkii yani dhaqanka saaxiibkii buu haystaa diin waa dhaqan qofku dhaqanka saaxiibkii buu haystaa qofkiin ha eego cidda uu la saaxiibayo aabbaha iyo hooyadu markay teenager ka fakerayaan inay gaadh ka hayaan maaha ee waa inay u yeelaan ciddii lagu aamini lahaa cidduu raaci lahaa cidduu la noolaan lahaa cidduu la sheekaysan lahaa cidduu la joogi lahaa cidduu wax la qaybsan lahaa waxaan ku soo koobaya wasaa'il ama qaab haddii la yidhaahdo qaababa aad u tiro badan bay sheegaan culamaa'i tarbiya waxoo dhammina waxay ku soo koobmayaan hadafkii nolosha laga lahaa in qofkan loo gudbin karo waayo qofkan jinata keli baad dhashay oo uu ku ekaanaya muuqaalka laakiin sida uu u fakeraya ama uu ku xidhan tahay guriguu joogo iskuulka uu tago miidiyaha uu daawado ama dhegaysto ama akhriyo suuqa uu la kulmo intaasaa waxay kawinaan qofka nin dhallinyarada jaamacaddaaba wuxuu igu yidhi niyow markaan eegay buu yidhi da'deennan dambe hardwarekaynu leenahay buu igu yidhi softwareka cid kale softwarekood baa ku jira yani qoladan kombyuutarada ka shaqaysa waxay sheegaan hardware inaa bahalka physically wuxuu ka samaysan yahay iyo programka ka shaqaysiiya wuxuu leeyahay yararkan inagu hardwarekaynu dhallay une software baa lagu shubay kaloo ka shaqaysiinaya buu leeyahay oo wixii aynu la rabnay waxaan ahayn shaqadiisa ku wada su-aashu markaa wasaa'ilkan aan ka warramaya waxa weeyaan how to install saynu ugu install garayn karnaa softwarekeenna inagu haddaba haddaynu hardwareka leenahay softwarekeennii saynu ugu install garayn karnaa si uu programmadeenna ugu shaqeeyo waxaynu nolosha ka doonaynay iyo sidaynu u arkaynay iyo aakhiro waxaynu ka arkaynay iyo nolosha adduun waxaynu ka arkaynay si uu ugu qanco oo ugu shaqeeyo sidee loogu install garaynayaa waxaynu u baahannahay ayi means kasta oo la raaci karo in la raaco waxaan ku soo koobayaa markaa waxani waa wax dadaal iyo juhdi iyo waqti iyo xoog iyo xoolo iyo fikradba u baahan inay bulshadu isku darsato keenna macallinka iyo keenna wadaadka midna qofkiisa qura ma hayn karayo qofkana meel gaara kuma xabsii karaysid qofku bulshuu ka tirsan yahay marka waxaynu u baahannahay inaynu ururadeenna iyo masaajideenna yeelanno waxaynu u baahannahay iskuulladeenna iyo systemkeenna inaynu yeelanno waxaynu u baahannahay naadiyadeenna iyo dhulkaynu ku cayaarayna inuu yeelanno waxaynu u baahannahay inaynu bulsho jirta noqonno laakiin haddaad ku tala gashaan individualist qofba intuu meel dego inuu ismaamuli karo ilaa maad expertka ugu weyn ahaatid waxba ma wadi karaysid ama expert noqo ama sheekh noqo ama miskiin noqo waxba ma wadi karaysid waxaad wax noqon karnaa markii waxaynu wada aaminsanay cidda aaminsan intaynu ururinno aynu wax wada yeelan karno sidaasoo qura aynu ilmaa u heli karno miidhiye ka warramaya waxaynu rabnay iskuul ka warramaya waxaynu rabnay guri ka warramaya waxaynu rabnay
naadi ka warramaya waxaynu rabnay waayo hadduu ilmuhu tanaaqud ku dhaco isburin hadduu ku dhaco waa mushkilad guriga waxaad maanta oo dhan ka lahayd way wanaagsan yihiin haddii iskuulka lagaga yidhaahdo way xuntay ama waxaad guriga maanta oo dhan ka warramaysay ee way xuntay soo sharxaysay haddii iskuulku uu ka sharxo inay fiican tahay dee dhib ay noqonaysaa laba vaaliyo kala gedisan baa ilmihii tanaaqud welina muu gaadhin da'dii uu caqligiisa si toosa intuu u isticmaalo uu wax naqdin lahaa wax critikiska uu isagu isticmaali lahaa uu isku fillaan kari lahaa ee wuxuu u baahan yahay wakhtigii uu cid kale ku dayan lahaa inuu joogo marka waxaan idinku soo koobayaa haddaad rabtaan inaa ilmo dhulkan ku rabaysataan ilaahay barya midoobana sala allahu calaa nabiyi moxamed wacala